بسم الله. واحد لبان عبد الحكيم حسن ورسيا waxaan caawa halkan u fadhiyaa inaan soo jeediyo bayaan ka soo baxay shir isdaba joog ahaa oo 10kii bariye ugu dambeeyay ay beesha jaarso ku yeelatay arliga Ingiriiska oo qurba joogta beesha jaarso ee arliga Ingiriiska waxaan cod dheer iyo cod gaabanba aan ku cambaaraynaynaa qaabka loo maray iyo se loo soo dhisay maamulku sheega degmada Tulli Guuleed ee uu soo magacaabay Aadan Faarax waxa uu ku saleeyay dib u curasho waxaanu leenahay jaarso haddaan nahay dib u curasho diidnay jaarso diiday dib u curasho Soomaali loo tilmaamayo waxay tahay dhibka ay ummadda u keentay inay guumaysi dabku ay dabada ku wadato taasna waanu diidnay Aadan Faarax waxa uu qayb ka ahaa 7 sano ka hor markii la dhisay degmada Tulli Guuleed qaabkii loo dhisay iyo nidaamkeedii gacan ku lahaa maantana mar labaad wuxuu soo celiyay tiyo oo kale duruufuhu kala duwanaadaan oo maanta duruufta taagan markaa ma taagnayn waxaa maanta taagan dagaal dab baa ka holcaaya xabad baa dhacaysa habeen iyo dharaar dagaal baa lagu jiraa beesha beelweynta jaarso xasuuq baa lagu hayaa waa la laynayaa tiyo loo adeegsanaya hantidii dowladda tiyo loo adeegsanaya maleeshiyadii dowladda tiyo loo adeegsanaya hubkii dowladda iyo gaadiidkii dowladda beesha jaarso waxay u babac dhigtay oo ay iska difaacday ina ilay fircoonkii qarniga oo awoodii uu lahaayoo dhan saaray beesha jaarso inuu xasuuqo uu dhulka ka kiciyo uu ka barakiciyo kana qaato dhulka kala wareego mashruucaas oo runta marka horeba ahaa mashruuctii beelfa iska lahayd kuna fushanaysay ina ilay kontract ku siiyeen isla markaana isna sabt kontract ku siiyay shakhsiyaal ka tirsan beesha gari oo nala degta degmada Tulli Guuleed isbedel baa dhacay ina ilay wad ogtihiin xaq maanta ka biyo cabaayo isbedelka waxaan sugaynay markaa talaabada ugu horeysa ay qaadaan maamulka cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne mudane Mustafa Maxamed Cumar in uu talaabada ugu horeysa qaadaya ay noqoto inuu nabdiyo dhulkaas dadkii barakacay dib u soo dejiyo dadkii walaaleeyo isla markaana loo diro meesha guddi xaqiiqo raadisa tiyo lagu salaynayo jawaabta ay soo celiyaan guddigaasi loo dhiso maamul marka loo dhan yahay oo raalli ka yihiin beelaha meeshooda dega laakiin nasiib darro Aadan Faarax oo isaguna mashruuca aad moodo inuu dhinac kaga jiro ayaa wuxuu soo saaray liis dheer oo dad dib u curashaa oo aan deegaanka ahayn inuu ku soo qoray wax deegaanka waa ku yaryin ku jiray waa mid aan la aqbali karin tiyo dagaal lagu jiro oo barakac jiro oo degmadiiba la deganayn tuulooyinkeedii maxay tahay maamulka loo dhisayahay waa mid ujeedo laga leeyahay wixii ka dhacay dambigii ka dhacay dibkii ka yimaadana isaga dubnada ka saarantay iyo xukuumaddiisa maalinta la yiri wala magacaabay maalintii ku saddex ahayd waxay bilaabeen gudoomiyaha loo magacaabay ninka la leeyahay gudoomiyaha loo magacaabay inuu weerar ay ku qaadaan iyagoo adeegsanaya hubkii dowladda miisaaniyadii dowladda gaadiidkii dowladda iyo meesha beeleedkooda ay ku magacaabayaan dowlad inay u dhisan yihiin oo dareeskii dowladda gasha waxay ka geysteen dhibaatooyin tuulada Jariile tuulada Harbiciid tuulada Dacwaley tuulada Korley agaajin iyo faafan runtii wax la dul qaadan kara maaha Aadan Faarax sidoo u dhaqmay waxaan u aragnaa duulimaad inuu yahay oo meeshii dabku ka shidmayay ku sii shubay benziil waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar in uu arinta iyada ah laalo uu cancellation degdeg ah ku sameeyo waqti baan siinay Mustafa 10 beri baan sugaynay oo aanu lahayn maanta iyo beri buu kansalayaa
mas-uuliyiinteedii markay u tegeen odayaashii beeshuna wuxuu ka ballan qaaday waxaan inuu kansalayo una ogeyn isagu maxaa ilaa maanta loogu haya markaa meesha runtii markuu isbeddelku dhacay oo madaxweynuhu meesha yimid madaxweynuhu waxaanu kaa sugaynay tallaabada ugu horreysaad qaadday in ay noqoto inaad nabdiso deegaankaas dadkii barakacay baradoodii lagu soo celiyey wixii gargaar ay u baahan yihiin loo fidiyo kadibna guddi xaqiiqaraadisa loo diro degmada Tuli-Guuleed si loo kala degan yahay jawaabta ay guddigaasi soo celiyaana lagu saleeyo maamul dadku raalle ay ka yihiin oo loo dhan yahay dadkiina dib ay u walaaloobaan mar kale oo isku diray ina iliya TPLF ay u ka dambeeyeen dhibaatada meesha ka aloosan waxaanu kaaga fadhinaa maantana oonu kugu baaqaynaa in aad si degdega sida ugu dhaqsiyaha badan beriyo gudahood aada go-aankaa ku laasho sidoo kale wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Ethiopia ahna guddoomiyaha xisbiga dowlad deegaanka Soomaaliyeed mudane Axmed Shide waxaan ku leenahay mudane dastuurkii baa meel laga dhacay dad dhibaataysan oo Ethiopian ah oo deegaankoodii lagu dhibaateynayo oo had iyo habeen la weerarayo oo dil lagu hayo ayaa haddana deegaankoodii maamul loo soo magacawday dib u curasho taasoo ah mid qalada oon la qaadan karin mudane waxaan ku leenahay tallaabada ku habboon si degdega uga qaad taas ayaanu adigana kuugu baaqaynaa waxaan ugu baaqayaa garaadada ugaasyada sulaadiinta cuqaasha odayaasha reer Jigjiga in ay nabadda sidii ay shalay toole ugu ordeen shacabka Soomaaliyeed ee degan dowladaha dariska ah ay macal xukuumaddu gargaar u gaarsiisay odayaashuna ay ugu ordeen inay nabdiyaan dadkaasi nabad ka dhex abuuraan runtii waan bogaadinayaa waa mid lagu farxo dad islaama oo walaalaheena oo dariskeena in nabad laga dhex dhaliyo ajar iyo xasanaad badan baa idinku jira waxaa la isweydiin laakiin mudan iyaduna oo la isweydiinayaa tiyo ololka ka baxaya Jigjiga agagaarkeeda qoriga ololaya oo qiiqiisu idin soo gaarayo waxaad uga aamusantiin ilaa maanta awal waxaanu lahayn ina iilay waynu ogeyn dictator buu ahaa cabsi baa jirtay fara badan oo maynaad hadli karaynin wuxuuna raalli ka ahayn lama samayn karayn laakiin maantood xurriyad haysataan ee aad heer gaadheen inaad dowladaha dariska aad u gargaar tagtaan ood nabadayn aad ka samaysaan waxaa idiin diiday in aad beelahan walaalihiina ay dariska tihiin waxaa la yidhi ab ooday ab ka dhow bal dib isku weydiiya arrintaa iyada ah waxaan u aragnaa ujeedda inay ku jirto halkaas waxbaa ku daguugan halkaa waana midaan aad iyo aad uga xunnahay mid laydinka filayna maaha haddana waxaan idinku baaqaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan beelahaas u dhex gashaan u nabdisaan waa mid la idinka fadhiyo oo waajib idinku ah diiniyana waajib darisnimo idinku ah waajib ehelnimo idinku ah waxaan halkan ka bogaadinayaa xildhibaan doctor nimcaan cabdullaahi xamare xildhibaan waxaan ku leeyahay tallaabada aad qaaday waa tallaabo geesinimo ah waa tallaabo dadkaagu ay ku farxeen dhammaantayna kugu garab taagannahay kuguna taageerayno sida aad uga jixinjixday eed uga damqatay dhibka lagu hayo xasuuqa lagu hayo barakac lagu hayo ummadaada waan ku bogaadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba mar walba garabkaaga nahay xuquuqdeennana waa inaan u wada halgannaa mudane mustafe madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane mustafe maxamed cumar adiga iyo la taliyayaashaada mee horta odaygii nabadda jeclaa ee cadaaladda u halgamayey ee geesiga ahaa cabdirashiid cali shuuc xagu maray maxaa u diiday Jigjigu joogaa mar walba rasaasteedii dhibkeedu maqlayaa dhaawaceedu arkayaa dhimashadeeda shiraaceedu arkaa oohinteedu maqlayaa maxaa u diiday in uu arrintan kale uu nabdiyo
oo noqdo biladgeesi ku qaada arrinta iyada adigana waxaan ku leeyahay walaalow cabdirashiid oo arrinta iyada ah ha fudaydsanin dadka sida xun u fikiraya ayaa raba iyagana inaan qodob idhaahdo beesha jaarso waa beelerey ma aha xoolo dhaqato ma aha ama ari ama geela daba ordaysa oo xoolahooga haddii laga dhaca xitaa aan iyaguna xoolo kale raadsanaya soo dhacsadaan waa beeraley arliya ah deegaankooga degan aanan taakana cidda uga durkayn inay ku dhammaadaan weeye yaan lagu fikirin markaa oon lagu raacin laguna taageerin dadkan matashadaaya